أولا waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo mudan wax kasta oo wanaaga in looga mahad celiyo maxaa yeelay wax uusan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqbalin ama ogolaani ma dhacaan dunida kama dhacaan marka sidaa daraadeed kulankan caafimaad qabka iyo nabadgelyada aynu isugu nimi kuna taageerayno isim ku soo kordhay isimada dhaqanka Soomaaliyeed Garaad Maxamed Garaad Abshir إن شاء الله تعالى إلهي بنوكم هذا علينا مركا كذب وحنوم هذا علينا يا دمان وضياشة إيو قبلها متعلمين تا سياسيين تا سراكيش قرنك الصوماليات نقولها دقنك دمانتين وحندكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كذب إن شاء الله ما دام عيننا هيدا المسلمين وحن شاء الله هي inaan ku bilowno aayadaha quraanka marka awalan waxaan jeclahay inaan u yeero Ahmed Mohamed Aceb falyatafadal mashkuuran hadii aad maqlayso a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق في رسول الله الكريم إلهي نقوى فعيدها عورانك إن شاء الله تعالى وحين قد قلنا المركة وجددي هدف كينا يوم أركتي وحينور بالعام يا حفلتي يا قطبتي مركة إن شاء الله تعالى وحن شاء الله هاي وهرين إن أنا وياه إبراهيم حاج محمود أو إنه أخري أولا أنت أين خطبة يتغير يدعاء الجلين بس الله برودتك قرأتك عصب إلى ضد بدن بوحليه قرأتك وقوما يهي حقوق كل شيء محوج حقوق شوجا ما دام رقم كي صوماليات يضياشي يسراكيش أي شوجان بس أي قرأتك عصب أوبرتان وحن شاء الله إن أنا وياه إبراهيم حاج محمود أو إنه أخريه تاريخ قرأتك تفضل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما برا إن أنا كلا كحلو لكن ما أنت ولا يخصبي إن صاحبك كشكي تاريخ النساء عليه هذا وحير إن كشكي تاريخ النساء وحير كشيء جراد محمد جراد عبشر صالح جراد محمد كل أرض وأنا صاحبك يا روانتي وحوم ولا يا أنا نسكت أن هاي وقت بدنا واسمنا غاني إلا عرب لماذا يدي جراد محمد جراد عبشر صالح وحو دكسي سري وقبح حي حمر دكسي سري أوها شيخ حسن برساني كدب وحو جامعة بشراركا وكل ميي 4 years جورجيا ماسون يونيفرسيتي أو كتالا فيرفاكس فيرجينيا إنت كدب وحو ماستر ديجري education and IT وكل ميي ستراير يونيفرسيتي واشنطن دي سي محمد وحو تخصص ku qaatay IT software education 7 years inuu ku shaqeynay
hadda la joogo wuxuu la shirka dhigaa ama uu joogaa Qura University oo ah ku taala Saudi Arabia marka intaas waa inta waxbarashadiisii Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan jeclahay inaad idinku salaamo garaadka xilli kamid ah xilliyadan insha Allah taala waan idin maqashiin doonaa codkiisa oo uu la hadli doonaa ismada iyo dhamaan dadweynaha Suldaan Cabdilaahi Nuur Faracade odayaasha ayaan jeclahay inuu maaragtay awalan ku salaamo fadal Suldaan garaad ma maqashaa بسم الله الرحمن الرحيم ما هذه إلهي باسكالة سجنا هالكن يقول كلن سيء وحنونا يسقون بيد وحويان تاجر جراد محمد جراد أبشر صالح و اللهم حريستي به شجدا وكبحي waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah bilbillahi kareem inuu buuxiyo jagadii odaygu ka tagay ummadda halkan isugu timid wad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladatan lagu taageerayo anigu waa sidaan u arko waa taageero lagu taageerayo garaad maxamed garaad abshir saalax oo hadda u diyaarsan jagadii inuu qabto intaa kadib waxaan u gudbayaa bal hadda garaadka inaan salaamo garaad waad salaaman tahay 100% anigoo waxaa la yidhaahdaa Cabdilaahi Cabdi Nuur Faracada laygu naanaysaa سلطانimo aanan shaqo ku lahayn baa lay daba wadaa marka dadka intuu protocol oo lahayn tuurtay secretary la tuuxay anigu ma ahay shaqo ku meelay suldaannimadaas bari horaan diiday marka haddana iga hadhi weyday yelkadeeda weligood baa daba waday laakiin waxaan ka rajaynayaa nin aqoon-yahan tahay oo aad iyo aad wax u bartay sida hadda halkan laga dhawaajiyay aqoontaasna ina waxa fiicnaan lahayd in ummadda uga faa'iideysid labadiiba haddaad isku qaadatay garaadnimadii iyo aqoontii dee waa hidaayad ilaahay ku siiyey ummadda sidaa uga faa'iidee adiga intaasaan ku leeyahay aadna waan ku salaamayaa intaa kadib waxa weeyaan taageerada aynu isugu nimid waynu bixinay soo maaha waynu taageernay soo maaha annana waa taageernay sidaasaanuna ku taageernay aad iyo aadna waanu u soo dhaweynaynaa xafladda waana mahadsan yahay garaadku wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلطان هذه آد بعد أمة سنتهاي بقول كيف بقول إن شاء الله وحن كحد شينيا أضيعنا وأضيعشا بلها هوية أمو قدر الصوماليات وإبراهيم محمد شاكي يفضل بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeyso ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa xafladda tan lagu taageeriyo garaad maxamed garaad abshir saalax intii soo qaaqaabisay iyo intii noo yeertayba aad iyo aad jasaakumullahu khayran aan idin leeyahay waa mahadsantihiin marka kale anigu saddex arrin baan taabanayaa garaadka waa imaqlayaa marka ugu horeyso waxaan u tacsiyeynayaa garaadkii abshir saalax oo dhintay alla raxmo jannadii allah ka waraabiyo marka labaad waxaan leeyahay garaadka aqoon-yahanka ee maxamed abshir saalax garaad maxamed garaad abshir saalax oo la magacaabay waxaan kugu dardaarmayaa xil weyn baad qaaday
nin xil qaadayne waxaa la yiri waa arintaas waa arin culus nin xil qaaday ceeb qaad marka inaad ka soo bixi doontana waa filaya sababtoo ah waxaad tahay nin aqoon-yahane sida ii muuqata taariikhdaada markii laga hadlayana waayo aragnimo ay ku dheehan tahay ummad badanna wax la soo bartay soona arkay soona dhexgalay haddana meeshii sacuudiga meeshii barakeysneed joogo jaamacadaasna macalinka ah marka anigu waxaan u malaynayaa dardaarankaygu waa iska garab istaagide waxaan u malaynayaa inaad isku filan tahay inta laakiin bini aadan baa la yahay oo haddana ilaahay ma ogiye inta kale wuxuunbaa naaquska ah wixii naaqusana allaha kuu dhammaystiro cimrigaadana allaha raajiyo waxaan rajaynaynaa garaad Soomaaliyeed tahay inkastoo maanta Soomaaliya oo dhan ay meesha fadhido laguna taageeray haddana garaad Soomaaliyeed tahay oo aqoon-yahane garaadyada aqoon-yahanka waa yar yihiin waa fara ku tiris waa 1 2 3 4 kama badno marka waxaan idin leeyahay aqoontaadu ha sii korodho anigoo rajaynayo inaad ma taqaanaa guul ka sii weyn oo ummadda Soomaaliyeed isku keenaysan aad ku talaabsato waana mahadsan tahay lagana raalli ah waana ku duceynay waana ku garab taaganahay war maanta waxaan iskugu nimid inaan garab taaganahay garaadka Soomaaliya garab taagnin waa mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay adeer Ibraahim Maxamed Sheekeeye aad baad u mahadsan tahay ducadana Allah ka aqbalo marka insha Allah waxaan u malaynayaa waqtiga ayaa inagu yar waa iska soo koobanaynaa insha Allah qofkii maartay loo yeedho waxaan jeclahay marka hal oday kadib bal inaan u yeedho maxaan ku dhahdaa gabadh ama marwo ku hadasha afka gabdhaha marka qofka saddexaad insha Allah waxaan joonayaa inaan ka dhigo General Cabdirashiid Aadan Xirsi oo ah taliyayaasha ugu sareeya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qaybta booliiska falyatafadal General marka horeyso assalaamu calaykum marti sharafka iyo dadka sharafta leh oo ka soo qayb galay nasiibna u yeeshay inay maanta ku taageeraan garaad Maxamed garaad Abshir Saalax aad waxaan ugu hambalyeerayaa gabdhihii ka shaqeeyay oo qurxiyay goobtan shalay iyo xalay iyo maanta taagnaayeen horta way ku mahadsan yihiin meeshan quruxda badan ee la keenay aad baad u mahadsantihiin meediyahana oo hawada loogu jirana waad mahadsan yahay hawshu hayo odayaashii aanu shirkan ka soo wada qayb galnay oo u yimid inaan taageerno ilaa meesha aan hadal badan looma baahnay la taa hadal quruxdiisana waxaa dhameeyay Sultaan Cabdullaahi iyo Sheekeeye oo magaciisaaba war noqday oo sii daayay waxaan ka dabeeraha waxa weeye waa un erayo aan ku taageeraa garaadka waqtigana waa dhooriyaa garaadow Maxamed garaad Abshir Saalax asagana Allah u naxariisto adna xilku lagu idmaday ilaahay ha ku fudeeyo nin xil qaaday baad noqotay waana culus yahay Allah u naxariisto garaadka aabaha taliyay waxaan jiray waa la shaqeeyay garaadnimada ka hor garaadnimada shaqadiisa ka bacdina garaadnimadana waa la kulmay wuxuu magac ku leeyahay geeyga Soomaaliyeed ma hays adduunka oo dhan meel uu marin ma leh aan weeya garaad Abshir Saalax wuxuu ku gaaray garaadkiisa iyo garashadiisa iyo aqoontiisa iyo dulqaadkiisa iyo nabadda uu raadiyo barbaarintiisana nabad biliis buu ku soo barbaaro ummadda nabadeeda iyo kala badbaadintiisu ka shaqeyn jiray markii dambana ismu ku noqday waad yartaa nasiib baad u yeelatay aqoonna waad leedahay waxaa ku sugayaa ummadda Soomaaliyeed qoys iyo reer ku oran maayo ummadda Soomaaliyeed baa ku sugaysaa Allah ku fududeeyo waana ku soo dhaweynay waad mahadsantihiin General aad baad u mahadsantahay waxaan u malaynayaa bari dhow hadii aynu sii noolaano ma gaari doono inuu malaynayaa
jenaraal ama sarkaal ka sheekeeya taariikhdii Soomaaliyeed qolo dambe oo aan malaynayo iyo loo bixin doono baa qabsan doona marka waa in aad loogu tahniyadeeyaa saraakiishii hore waa qarankii isku hayay dawladda Soomaaliya laga yaabay dadka qaar inay iga xanaaqaan laakiin waa sida saxda ah dawladda Soomaaliyeed ee Soomaaliya la oran jiray ugu dambeysay qofka magaceeda wata dadka uu ka qaalisan yahay marka waxaan jeclahay qof kasto kamid ah in aad loogu waxba kama dambeyn marka qolyaha maamulada iyo xanaaqin hadii sida aanu nidhaahno ummadeena kala tagtay isimadeena la wada qulqulayo kii isu keena noqo gogol wanaagsan gogol wanaagsan ilaahay idankiisa soo urushihiyo isu keenihiyo idanka ilaahay na jid mari na hogaami mayalka noo qabo ayaan kuwayo dadarumaad ayaan kuwayo dadarumaad Allah arintaadu tii lagu irkada ka yeel Allah arintaada tii aqbala ka yeel ilaaban ku bariyaye ayati Allah kubariyaye ayati Allah sidiya bahaw no ariniya noqo sidiya bahaw aqbalkeena noqo dalkeena kala tegay isu soo dhaweey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دامنا إله كأقبل. ومرض يريد بالراعي مالكي. مركايد الله كأقبل وإن شاء الله تعالى وان ان شاء الله ان ها ما عدكم حي صمحوا بسفعين ما شاء الله ان شاء الله تعالى وسوق بغبيسنينا marka waxaan jeclahay garaad waa ku salaameynaa dhamaantayo waxaan jeclahay gabar kale oo iyaduna khadka ku jirto oo bururtay oo iyaduna abwaanada oo aan hadda magaceeda garanay magaceed gabadha buraanburaysa ay sheega gabadh leeyahay Marwa Xaliimo oo iyaduna abwaanada gabdhaha Soomaaliyeed ayaan waxaan jeclahay buraanburkeeda inaan bay telefoon ku soo dhaweeyo marka Isaar Khalid oo ku qabo gabadha buraanburaysa de gabdhuhu waxay ku jiraan waa hooyooyinoo iyaga iska leh afka iyo dhaqanka waad ogtiin wax walba iyaga loo celiyo afka hooyo diintaydii hooyo dalkaygii hooyo marka wax walba iyaga leh marka waa inaynu in badan dhageysanaa gabayadooda iyo maaragtay marka waxaan jeclahay inaan u yeedho wakiilka suldaanka beesha reer Fiqishini waa beel ballaaran oo laba meelood beelweynta hawiyana ka mid ah ahna sool sanaag yacayn marka midna wakiil Daawud Cashuur Warsame soo dhawow abtino waanu ay abti soo dhawow bismillah horta dhammaantiin waan idin salaamay dumar iyo ragba aad iyo aad baan idin salaamay xafladan qiimaha badan dadkii soo qabanqaabiyey iyagana mahad baan u celinayaa waxaan salaamayaa garaadka garaad maxamed garaad abshir saalax waxaan ku salaamayaa 114 cadada quraanka baan ku salaamayaa waxaan anigu wakiil ka ahay oo xalay markii aan maqlay xafladan aan xiriir toos ah wada yeelanay suldaankaygii waxaan garaadka rabaa inaan u sheego aniga oo ka wakiila cuqaashii beesha iyo suldaankoodiiba inaanu taageero buuxda aanu la garab taaganahay
waxaan kaloo aan leeyahay garaadka hawl culus baad qaaday waxaan ilaahay kaaga baryaynaa hawshaas culus in ilaahay kuu fududeeyo waxaanu kaloo ilaahay kaaga baryaynaa ninkii noqda dalkiisa iyo deegaankiisaba kii anfaca waan ogsoonahay deegaankeenii in muddaaba waxaynu ahayn horta dad taariikhiya oo dadka ka horeeyo dadku ay ku hirtaan baan waayadii hore ahayn laakiin waqtiyadan dambe waxaad moodaa in madow soo galay waxaan ka baryayaa ilaahay suldaan mustafe iyo garaad maxamedba dhallinyarada aqoon-yahanada ee cusubi inay waa cusub noo furaan oo ay nagu soo celiyaan taariikhdii iyo historigii aanu ku lahayn dhulka Soomaaliyeed baanu ilaahay ka baryan maxamedna waxaan leeyahay de hawshaas waa hawl ku taala waa hawl ku qabyaa waa hawl u baahan in boorka laga tuuro marka waan ku salaamayaa 114 kugu salaamayaa garaad soo dhow waan ku leeyahay aniga beeshayduba waa ku hambalyeynana waan ku taageersanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh garaadka ugaaska aan xalmanay oo dooranay afhayeenka beesha Arala Ahmed iyo xiniye taagantay magacaasu ii sheegay afarta Arala Ahmed iyo xiniye xooga cayr waa garab taagana hiib iyo hoo waa garab taagana ugaaska iyo ragiisa iyo kulli annagu ciidana waa ku kaalmaynaynaa xoog iyo xiniina waa ku kaalmaynaynaa waana garab taagana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xaaji Arala Ahmed aad buu maadsan yahay waa naga qosliyay marka waxa weeyaan ma sha Allah kana aad buu maadsan yahay ugaasku marka insha Allah taala ugu dambeyn waxaan maleynayaa waqtigii hadda waa iska gabagabo waxaan jeclahay telefoonkana insha Allah taala kulli garaadka laftiisu waa ku daalay marka waxaan jeclahay ugu dambeyn waxa inoo xidhi doona xaflad oo aan qofna ka dambeynaynin garaad Cabdilaahi Xasan Maxamed oo ah walaal garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed walaalkii garaadka ayaa xafladda soo xidhi doona waxaan jeclahay inaan qofna ka dambaynin sida dhaqanku yahay garaadada iyo ismada iyo ugaasiyada iyo malaaqyada iyo wabarada kullu waa Soomaaliga qolo wasbi ugu dhawaaqdaa laakiin miinis anaga waa noo garaad gidigood marka insha Allah waxaan jeclahay inaan u yeedho wiil annagana halka nooga ah wakiilka garaadka oo garaadka walaalkiisa waa Maxamed Saciid Maxamed ina sheef oo garaadka ilmaadan yihiin ayaan jeclahay waxaa dhalay gudoomiyihii bankigii Soomaaliya waad garanaysaan sheef waad garanaysaan waa nin doctor aqoonyahana soo istaag baasha wakiilada ciyaar lagu qaadan maayo dadka ku bartay السلام عليكم أنا ku hadlaya magaca garaadka aad baan idin soo dhaweynaya kulligiin garaadada iyo odayaasha ma sha Allah ka wada fadhiyo kulligiin waxaan leeyahay aad baad maasantihiin shirkan isku nimid ma sha Allah ilaahay ma soo dhaweey assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wakiilkan ay cudurdaanay waa reer xamar markii dambana Mareykan buu yimi marka waxa weeyaan hadii af Soomaaliga qaar ka yar qalloocdo de la baas waad ogtiin reer xamarku de yaakhide aad u badiyaan halka hortayda iga muuqda nin oday ah oo abtin oo ahay mutacallimiinta ku jira waan u yeerayaa insha Allah taala wasiirna wuxuu ka soo noqday maamulkii Khaatuma faliyad tafadal abti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وتصديق أنه سياسة دوغا بحي ستيشن ما سو يستاغو لكن ويكو من تاينا ما انت سو يستاغو جراد محمد جراد أبشر صالح وابتغي دالينا ونو تهنيدين يساقن إن شاء الله هوشا عرس لو ديبينا إلهي وحن قبليا إنو قدقو مد فضود أو نقضو مد كي رير كيسكو كينين لها صومالي ويكلا دقاقدي إبن إننا دحدينا ما كلا دقاقي سيدا درادد waxaan u baahannahay dad ina ururiya oo soo celiya Soomaalinimada luntay marka insha Allah waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu garaadka Ilaahay u fududeeyo hawsha culus ee loo igmaday assalaamu alaykum warahmatullaah waxaan jeclahay
gabadh marwaa oo qaaliya hadda soo gashay oo garaadka hooyadiisa Samsam Axmed Sahal waan soo xidhayaa garaadku adeer qofna ka dambeyn maayo haddaan u dhiibo waa xafladu way xidhan tahay marka insha Allah waxaan jeclahay inaan u yeedho garaadka hooyadii waa Samsam Axmed Sahal waa xaaskii Cabdillaahi Saalax Maxamed korneyl Nadalo ninkii la oran jiray Cabdillaahi Saalax Maxamed Nadalo xaaskiisi weeye soo dhaw marwo garaad waxa weeyaan hooyo Samsam baan ku dhiibayaa فليتفضل شو كم جرتي سودو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هوي هوي ود مقلس سفي عن سماها ها ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد waxaan ku leeyahay waan ku duceynaynaa anagu waalid baanu nahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa xilka lagu doortay in ilaahay kuu fudaydiyo halkii aabbahaana in aad gasho dadka kii ururiyana in ilaahay ka dhigo Soomaali oo dhan ururiya reerka siiba khaas ahaan dhulbahanta ururiya isu keena Allah ka dhigo guulaysa baan ku leeyahay maxamedow tacliinna hooyo waad leedahay diinna waad leedahay labadaba waad leedahay waan ku ogahay labadaba ku shaqee ilaahay garabkaaga ha galo intaasaan anigu soo istaagay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتا هو سمسم إن شاء الله جزاك الله خير وخير مساء دقران وحن مريلي والولد دعي والدينتي يوم ما شاء الله بقرتويد وإسرع علي إلهي أنا أقبله الرحمن الرحيم واد مهدسنتين قراتك ومهدسيهي وانا الصلاة يا قراد محمد قراد أبشر صالح محمد علي بولاري انت سوى حياة مسؤول تاريخ ناس أولد بولاري مسؤول عرالة قولات بوليني مركز أي سلاحة هاي وحاكا تاريخي ليا آد haddaan beeraha dhulbahantannahay wax noo gaadheen laba nooc culus oo laba isibaa naga dhintay isaga iyo ugaas Cabdillaahi garad abshir iyo ugaas Cabdillaahi baa naga dhintay iyo garad Cabdillaahi saddex baa naga dhintay saddex nin oo macnale oo isimo aad u qaaliya bay ahaayeen markii burburku dhacay qolo waliba gudaheeda kawbay iska dhigto way iska leeyeen jilib waliba isma Soomaalidu dushu bay ka colowdeen hoosta ka sii xumayd qolo walba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh garaad aad baan u fiicanahay garaad waxa halkan fadhiya dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed oo aan kala maqnayn marka dhammaantood halkan ay fadhiyaan hambalyo ayay leeyihiin marka insha Allah waxaan jeclahay inaad ka salaantid codkaaguna ku maqlayaan dhammaantood magacyadoodana insha Allah waan ku maaragtay liis garayn doonaa marka halka ka maqashay karad dhammaan dadka meesha fadhiya martida sharafta leh السلام عليكم ورحمة الله سيفي عن قرد واقع مقلة وأنا سلام يا خير أوهايو فروحنا سبحانه وتعالى لكن كان سمعتين أكنتي وإنها لاهي تبتي سمعتين وآد ماركتي وآد سيدين كبرو من الإنسان marka labaad waxaan dhammaanteen ilaaha uga barya horta ilaahay hawshan magacaabida iyo dalkeeni oo intaan dibadda ka taagnayn muddo inuu ilaahay labadaba inoo sahlo amiin waxaan taa waxaa ii raaca oo maaragtay idinka aan gaar ahaan idinka codsanayaa Maraykan baa inuu qori kartaan waqti hadda dalku marayo iyo dhibaatooyinka jira iyo waxoo dhan marka inaad marka hore igu soo dacaysaan wixii maaragtay waxqabadana maaragtay tala iyo tusaalena maaragtay
aad naga caawisaan waxaa taageera mid kastanoo anigu almost 3 sano marinaya iyo badhay ahayd markii aan aniga eekay halkan yimi intaa wixii ka wada reer Maraykan baan nahay waxaan ku jiray 9 to 5 marka سلام الله عليك وعليكم قرات والله قاضي أمان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركه هو الرئيسة إلهي سبحانه وتعالى يا رب علينا يا مركه كوباد يا مركه لواد يا مركه صدحات با مركه حكسة وحرم علينا يا dadweynaha sharafka leh kasoo qayb galay xafladda lagu soo dhaweynayo magacaabista garaad maxamed garaad abshir saalax maxamed aad iyo aad baan idin salaamaya dadweynaha inta soo maamushay soo maamustay iyo inta soo ajiibtayba haddii la maqlayo أنا ودي لما تشوفه لما تشوفه لكن هذا مارتي سيدا وحوك عيانا نطاقة السنة هاي ذاتك لما انكسوا قيب قرانا وقمع العين يا سنة ولا سنة رسوا قيب قرين فلدا عيادا كلمة دانو كل إيران مايو ذاتك حبناها هاي جوه ومطلق هاي عرانيا يحيى القاون وقاويا وانكما موسيو كنا سودوين يو كورونا ترينا يو كورونا دردار ميو جراد كحصول أيام نونتو بيش جولد جراد أيام هذا كأخرنا إن شاء الله تعالى جراد محمد ورير كوي كلا قدومي جراد محمد ورير كوي كلا قدومي قولون عكسارير كأكون عكسارير كبيان كبرى قولاس كوا بدايا كدي سوكينا قراشي العدالة دي الله يقاروتها قعان بوحد بانكو وقاهي قسمين وين جعل بوحد بانكو هاي سنين ويني قرماد فيدي قدال هو فكرين كوش لوسيه قراني ماكو قول مالين تيجيت كالله كينو يسكا جيتي يالله ورم والله كيسمراي قرادة كبيرة بهاجري ووتمية قرادة كبيرة بهاجري ووتمية قواني ماذو ووحان لكوين عدي قواني ماذو ووحان لكذا عدينا كوينية قواني ماذو ووحان لكذا عدينا كوينية قولاتشوك سيغان كوغو جعلهاي كل ما هديه قرب كاغمان تاغنهاي قوريو عيان أنا قبل بالي وقرب
kugardaadinayno horseed nabadgarad guda kugu doonsanayo waan hubaa guushinoo timiye gogol dhigo gaman iyo fardaa kugu xilagee go-aanshaalkii lagu saarayaa waasan dalaguye guuleed garaadiyo hartibaaday ku gateen go-aan aan ilaah raaligelin gowha kaaga siinin afgaro ha noqon iyo dhabcaalanka shiga dhigin kuguwaabiye wanadahayga kala goyne garab daag ha noqon iyo ninkii aada gobolaysiiye garab daag ha noqon iyo ninkii aada gobolaysiiye gobka noo fadhiisiyo baliga samada garoy waxba yuusan yaasi gudbine waxaan ku soo gaabshay garaad noo ducay hadalku waa kagi dhacaya aad baad u mahadsantihiin intaasuu idaga egyahay بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو أمقعي ويهاي فادمهين دعال العرب وحان هالكن همبلية تهنيد وقدريا قراد محمد قراد أبشير وحان ليهي قراد سودو قعمة فرانكو سودو قراد نقرداد مع نقولين هاي وحانو دي بيا يدمروين وحان هالكن مر لباد وقد تهنيدين إياه قراد محمد قراد أبشير صالح محمد علي بولاي أنا قاعدة كوا غنى ابن كوحيجة أيوه سولي السناك يا عين كيسو كان الله كادو سومالي ورش الله كادو إلهي إذن كيسة سيدي أباها يوكله ما يلكن نوقبو إلهي إذن كيسة خاتوما كما باقن مي شيكو بيغن تاي بنادي خيو رساس تيكو بيرتنتا عدوكو باشوكا حيغو بايلا بيكستا وانكو داتا يا ربي يو دليلكاي وقاندي لدودو إيمان ولا شديرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وود السلام انتهين وحنا هيا نبو دادا قراد محمد قراد أبشر قراد صالحو دادا بانا هاي أبها هبر وداكتي بانا هاي كون مهد حاج فارح بالله يراها إلهي وحنك وكو همبليو وكو همبليين يا قرادكينا الله هون حريستو إلهي هون حريستو إلهي هون حريستو آمين أديقنا إلهي حلك الله ساري الله كو فدودي مد سكانة صومالي يردو البهانتة يقولت قراد الله كاردكو. السلام عليكم محمد أبشر صالح محمد إيه وفاطمة علي وانكو سلام يا وانكو سود وين يا آد همبلكا إيه إلهي وحن كبر يا دين إلهي كو حصليو شقدا هذا الشيء إن هذا نقول ونأكسن أو ونأكسن هذا كنتي إلهي وحن كبر يا وانكو شعلهاي آد ودكتا إنه لبدأ إنه ماشي إنه كلا تشوجنو إلهي وحن كبر يا كيلو آيو إلا قلنا استوينا هاتو inaad guul wanaagsan ka kayso shaqadaas waad ogtahay aad baan u jeclaa inaadan guusha adigu meesha gelin laakiin qadar samaday kaaga qoreedeeyo Allah ku fududeeyo arrintan waa arrin khayr ah waa arrin aan siyaasad shaqo ku lahayn waa duco marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanaynaa intii ka soo qayb gashay intii soo haleeli weyday inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dambi dhaafo
marka insha Allah taala garaadkaayo waxaan rabaa laba kelmadood telefoonka dadka inuu isaguna ku yiraahdo kadibna aynu soo xidhno xafladda oo inoo soo xidho garaad Cabdilaahi xafladda marka garaad Maxamed laba kelmadood insha Allah oo mahad celina iyo ducaa ayaan ku siinayaa waqtiguna waa lagu kooban yahay fal yatafadal ayaan garaad fiican marka hore waan salaamayaa bacda salaan idinkoo ku duwan waxaan leeyahay jazaakum allah khayran ducadii kulligeen ilaahay haynoo aqbalo amiin si fiican baan u dareensanahay maaragtay reer Maraykan waqtigii muhiim weeye wadamadan kale islaamka alxamdulillah annaga ilaahay maaragtay waxyaabaha waqtigaa barakaysan marka waqtigiina soo hurteen waxaan leeyahay wax idinka qayb badan lahayahay idinku jiro dalkeena ilaahay subxaana watacaala soomaaliya oo dhan nabad haynooga jiro amiin marka waxaan isu soo ducaynaynaa waxbayna ku dheeran maayo waxaan leeyahay jazaakum allah khayr xigmad badan baad soo bandhigteen waanan qaatay insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa hawsha adag in kulligeen baynoo saaro amiin waana salaamaya jazaak وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين إن شاء الله تعالى قرأت واحدة من سمع إن شاء الله تعالى وحنو صحيح يا وكيل كقرأت عبد السلام حسن محمد قرأت عبد الله فنروح يا حفلة نصاصة إن شاء الله تعالى نروح ننتهي والذين ما علينا مركو بعد يمر لبعض يمر صدحات بوقت جينا غالقة إن شاء الله Soomaali baynu nahay ma kala maarno isku mid baynu nahay wayna ka dhaxaysaa sandaladaha iyo dhaqanka iyo wax waliba marka aad baad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga insha Allah xafladana waxa inoo xidhaya garaad Cabdilaahi waxaan ka hormarinayaa aniga magacayga waxa la yahay Salebaan Axmed Maaweel garaadka adeer baan u ahay waxaan ahay odayaasha beesha guuleed garaad marka aniguna waan iskiin baray wax laga yaabaa warninkan madow maanta dhan hor taagan muxuu ahaa inaad tiraahdaan marka aad baad u mahadsantihiin insha Allah taala soo dhawow garaad Cabdilaahi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراد محمد وانكو السلام يا قراد محمد صالح أبشر قرويني قراد وانكو السلام يا وانكو سودويني يا وانكو دعيني وانكو همبليني يا حفلة دادو تنغن ميسو waxay istabahaynaysaa muddo aad fara badan oo soo dhaweyntaada calimasaarkaaga howlo fara badan baan ugu soo fuulay waa wadaynaa insha allah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan ku hambaliyeynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa waa ku taageersannahay halkan waxaa fadhiya ummad soomaaliyeed oo afka soomaaliga ku hadasha oo dhul fara badan oo soomaalidu degan tahay ka timi in lagu jecel yahay adiga meeshaad ka soo jeedayna saasaa ku cadaynaysa ummadda soomaaliyeed oo dhan oo migsida halka kuu fadhida soomaaliyeed markaan kaala hadlo markaan ku leeyahay waa Itoobiya Soomaaliya Kenya inta afka Soomaaliya ku hadasho oo dhan ayaa ku salaamaysa anoo afkoodii ku hadlayaan ku salaamaya idinkana waxaan ku salaamayaa garaadka salaantiisii baad iga gudoomisaan markaan intaa ka gudbo garaad hawlo fara badan baa si dadka hore kuu sheegay kuu yaala odayaashii hore waad aragtaan wadaday sii hayaan qofka weyne ilaahay tiisa waa meesheeda laakiin wadka uu kaaga dhow yahay inamada freeshka waxaa loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysato dhulkii loo idmaday iyo dhulkay degan yihiin gaaraanta oo ay ka faa'iideystaan maskaxda freeshka waa ku salaamayaa sii badin maayo salaadiinta ummadda Soomaaliyeed afkooda ku hadlaya meel jooga masala baad iga gaarsiinaysaa khaas ahaan salaadiinta kula joogta sool sanaag iyo cayn ee wax walba ku ah ee aad ku biiri doontid ilaahay idamkiis waxaan rajaynayaa inaad khayr kula tagto khayr ula tagtid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xafladuna waa inoo xiran tahay